meel walba ka qeylisiinaya ee isaaq isku taray ee qeylo dhaan waa waray meel walba hargeysa barortu ka socoto waa jabkada cadawga gaarsiiseen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqaalkan waxaan ugu talagalay reer SSC Khaatumo inay si wanaagsan u dhageystaan oo ay isu gaarsiiyaan. Waxaan kula hadlay reer SSC Khaatumo meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa dibadiisa waxaan rabaa inaad si wanaagsan runtii u dhageysataan isgaarsiisaan. marka koowaad horta waan hambalyeeynaya dadka reer SSC Khaatumo inay u midoobaan aynu kula jirno jabhada khawaarijta argagixisada Salaam beesha ay dooriyo huwantooda dagaalka maanta mar labaad wajigiisa labaad inaynu u midoowno waa guul weyn weeye. warka rasmiga ah ee horta idin hayo waa kaas weeye in loo midoobo oo sidii aynu kii gooja cadde iyo kii sanadka horeba aynu midka u ahayn inaynu kana u midoowno waa qodob weeye. walaalayaal waa dhab dowladeena SSC Khaatumo waa dowladeena soo halganay waa dowladii aynu juhdiga badan gelinay. xukuumadda hadda jirta dhalin way yeelan kartaa way leedahayba yeelan kartaa in oran way leedahay laakiin ogow waa dowladdaadii waa dowladda dhisatay weeye waa dowladda nafta iyo maalka iyo juhdiga badan aad gelisay. xukuumadda dhammaan kolley waa la gaarsiiyay dhaliilihii faraha badnaa ee qabtay sida xogta ku hayana way qaadatay. haddii dowladdu ay dhaliil yeelato oo markaasi absolutely dhaliisheedu ay soo baxdo ma miidiyahaynu ka sheegnaa oo miidiyahaynu meel walba ka dhaliilan iyadoo dagaal socdo mise Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaa hoos baynu dhabaysanaa. haddaynu ka fiirino dhinaca xagjirnimada iyo iswaalka de dowladda miidiyahaynu ka dhaliilanaayo waqtigii badnaa iyo juhdigii badnaa halka aynu gelin lahayn miidiyahaynu dhaliil dowladda ah xukuumadeena ayaynu gelinayna. haddii laakiin la jecelo haddii laakiin lahaansho ay jirto dowladda si hoose aynu gaarsiinayna. aniga waxaan meenayaa cid iiga hadal badan dowladda si private ma jirto oo waqti ugu badan iyaga galiya wixii canaana iyo wixii dhalina private kan ugu dira wixii arfaysan siinayna luqan ugu dira. maanta dowladda wax ka khaldanto dhaliisheeda absolutely hoos baa loogu sheegay wayna qaadatay wixii hore ee khaladaada jiray hadda dowlad baynu noqonay administration baa inoo dhismay oo awood leh oo nidaam waa dareemi karaa laakiin markasta aragtida ugu muhiimsan waa in laba qodob mid aynu ka nahay difaaca dhulkeena waa qodobka labaad waa jiritaanka dowladnimadeena SSC Khaatumo taana maanta waynu ka mideysanahay waxay u baahan tahay inaynu sii xoojino. dhaliisha maamulka media yaa la marin hadday la jecel ka tahay hadday waxa weeye lahaansho ka tahay private-ka laamaha kala duwan waa wasiirku waa inaga taliyaha ciidanku waa inaga madaxweynuhu waa inaga absolutely wixii khaldama waa inaga waxa weeye si private loo wadaaga taas waa qodob weeye waa maamulkan lahaansho weeye. arinta labaad reer SSC Khaatumo waxaan rabaa fariin u diro reer SSC Khaatumo alada aynu ku jirno muddo badan baan waliba special anu idinku booriyay baan idinku kala dardaarmay shaqadu waa inoo qaybsantaa. xukuumadda shaqay haysaa dal joogtu shacbigu shaqo hayaa qurbo joogtu shaqay haysaa babal fikradu shaqay haysaa qolo waliba shaqadeeda. haddii qolo kamid ay shaqadeeda gabto sidaan hore u carabaabay private baynu wixii talaa u siinana. maanta waxa loo baahan yahay cadow badan baynu leenahay waa u jeedaan meel walba in duulaan leenaga yahay oo cadowgeenu isu keen soo bahaystay oo duulaan lagu yahay dowladda SSC Khaatumo iyo shacbigeedaba gobonimada aad gaadheen iyo guusha aad gaadheen iyo liminta aad gaadheen iyo midnimada aad haysataan iyo dhulka quruxda badan ina maanta cadow badan aad leedihiin ogaada. abwaankiini wana mujaahid halgamaa shahiid jaamac kadiye wuxuu yiri maankina galiya inaad mariino cadow inaad leedihiin maankina galiya wayna taamaankina gelisaan dagaaladeenu soo maray guulihiina soo gaarnay dhammaan waxaad kaga baxdeen midnimo idinkoo gacmaha isqabsaday. markii aad gacmaha isqabsateen
markii aad midowdeen markaad cadowgana u midowdeen markay taladiina midayseen markaad dhaqaalihiina midayseen markaad ciidankiina midayseen soo cadowgii gaamuray ee khawaarijta ahaa ee argagixisada ahaa Soomaaliya burburin yes wayna burburina maantana tiibaa loo baahan yahay hadday waxay naga xumaadaan ama maamulku wax ka xumaado ama qof shakhsi wax ka xumaado hadda cid kaliya qofka kaliya xukuumaddaasi kaliya wax kama xumaanay inaga dhow wax naga xumaadeen waxa loo baahan yahay sida aynu wax u saxeeyaan waxa loo baahan yahay jiidaha inuu dagaalka kaga jirno difaaca waa ogtahay ilaa qorlugud ilaa iyo bali salinta ilaa iyo arigaabo masaafada ay tahay waad garanaysaan intaaba difaaca dagaal baa kaga jirtaan waxa soo duulana waa isaaq iyo asana iyo argagixisada khawaarijtoodii hal haan isaaq haan ka maqan ma jirto laakiin waanu ku filanahay waa goorma weeye waa marka aynu maalkeena dhaqaalaheena cududeena siyaasadeena reer SSC Khaatuma aynu mideyno oo aynu sidii dagaaladii hore aynu mideyno oo aynu jeclaysi ya shakhsiga waxa sameeyay aynu meel iska dhigno way ka adkaanana absolutely horena waan uga adkeen haddana waa ka adkaanana midnimadu macaanka leedahay waynu soo aragnaa midnimada lagu dadaalo tuulo iyo degmo reer SSC Khaatuma qof hal naaskeed gaaro oo ku haro oo waxa weeyaan jirin waa in arimaha bulshada ururada haweenka waa in ciidamada waa in jamaahiirta waa in dhaqaatiirta waa in dawladda waa in qurbo joogta waa in shakhsi everybody SSC Khaatuma waa in aan waxba la harin dagaalkaas difaaca dalkeena iyo deegaankeena sababta waxa weeye waxa duulaanka lagu yahay waa dhulkeena iyo deegaankeena weeye taasina waa qodob weeye taaqo maanta waxay marayaan halkeenu marayna bishii labaad bishii saddexaad bishii afaraad bishii koowaad sanadka 2023 abaabulka iyo ay wadaan qabiilka ku salaysan waxaan u baahanahay qibtii inaan soo celino miidiyaha inaga badan ma jirto miidiyaha full power bay ku nahay ala miidiyaha reerka ugu badan waxa la wareer SSC Khaatuma awoodii miidiyahana waa inaad xoojisaan taasna waa qodob weeye daliil maamulkeena ya daliil inaga xitaa hadday jirto inaan babli la geyn oo gacmo geel jira hoos baa loo xaleeyaa hoos u dhamaysataa haddaad elasha qortid yaad wax tartay yaa wax yeesha cadawgaad wax tartay adigaas wax siyeelay taan horta yaqiinso inaad xarbul akbar ku jirto inaad milyan cadow leedahay oo shaad gaadhay waxa weeyna cadow badan oo milyan cadow leedahay waxa weey niyada geli waxa loo baahan yahay waxa la shan ul hadii la isu geeyo shan ul hal mar la isu geeyo ma la jabin karaa murti baad ahayd may laakiin dad mid u soo qaadid waa jabin kartaa haddaad isku duwantihiin cid idin loolin karta ma jirto quwad aan la qarin karin baa jirin waxa loo baahan yahay absolutely taageerada garab istaaga wiilashiina inaad garab istaagtaan oo nina uu soo waxba la harin taasna waa qodob weeye media waxay sameeyeen propaganda bilaabeen sawirro calaamad kale saarteen idoorkii ay iska dhigeen daaroodkii markaas narrative khaldan abuurayaan waxa loo baahan yahay idinkuna calaamada idoorka ee SRMta khawaarijta ay taad saartaan narrative kala abuurtaan oo aad ku dhaxdaadataan oo aad dhex gashaan oo siyaasaddu meesha ka socoto aad fahantaan dagaalku ma xabad kaliya ma aha dagaalku waa nooc badan yahay walba waa in dagaalku waa in ka wadno weeye oo waliba jamaahiirtii cabsida ahayd shaqadaas waa inay qabsadaan narrative waxa weeye hadii la kureeyay opposite kuwa narrative doorka SNFta waa inay idinku abuurtaan qofkii aynu hayb wadaagno ama group wuxuu rabaado inaga inagu soo taagtaagna ama ina dhaliira ama ina caaya ama wax inaga sheega yaa maanta loo jawaabin waa in afka laga haystaa ignore garaya sababta ay uma jeedno dagaal baa inagu furan dagaalka aynu ku jeeysano ninkii caaytamaya ninkii wuxuu rabo ku hadlaya afkiina haysta nin walba dhitadu dhigto baynu kula xisaabtamin doonaa absolutely mustaqbalka
waqtiga ugu badan iyo juhdiga badan aan gelino innaga arrimaheena internalka waxa weeye difaaca deegaankeena waxa weeye taakulada ciidamadeena garab istaaga dadkeena aynu waqtiga ugu badan gelino waqtiga ha ku lumin qof shakhsiya ama fardiya ama kooxa oo adiga markaasi ku caayaya ama ku aflagaadeynaya waxa weeye waqti badan ha ku lumin hadaad waqti ku lumisid oo waqti siisid waa soo doonay way hala ignore kareeyo taasna waa qodob yaan loo jawaab cidna yaan loo jawaab aan ka haynay nimanka aynu saynay jabada argagaxsadaysan madaxweyne firdhiye waxaan leeyahay madaxweyne kale si bareefadana dhal wixii talaana waa ku siinay madaxweynahaygii baa tahay halkan ka dhaleeli maayo halse talaan ku siinaya taladaan ku siinay madaxweyne waxa weeye talada ka qaado ismada ka qaado waxgaradka ka qaado siyaasiyiinta u talabadso xaaladaha degdega ee deegaanka ku sugan yahay oo talada hay isku koobinay talada dadka wax ka sii madaxweynaha inta u dhaafi maayo qurba joogta waxaan leeyahay qurba joogay barbarkay ka baxda waa bakeela qaleen hawshu waa inoo kala qaybsan tahay hadaynu noo qurba joogtanahay qaaraanka iyo garab istaaga waa in aynu laba jibaarnaa kii $100 bixin jiray horaan u sheegay $1,000 bixiyaa kii kunka bixin jiray waa inuu $5,000 bixiyaa kii $5,000 bixin jiray waa inuu $10,000 bixiyaa waa u jeedaan dalka iyo deegaankeena xaaladaha dagaal ee deegaankeena uu ku sugan yahay qofka qurba jooga ee ka hara qaaraanka ee garab istaaga taageerada ciidamada iyo difaaca dalkeena iyo deegaankeena waa diis weey haddaad doonaysid inaad qorsashid oo aad faraxdid oo aad guul gaadhid oo aad waxa weeye makhaayadaha aad farsatid ushaadu jeebka ay ku jirtaa taayna aamintaan weey oo dhaqaalaha dhigtaan ganacsatada reer si khaatum waxaan leeyahay dagaaladii horena waa la xamanayay oo qaybtii loo baahnaa kameedan qaadan dagaalka maanta waa inaad qaybtii aad ka qaadato oo la arkaa iyagana intaasaan leeyahay waxaan kusoo gabagabeynayaa ciidamada militariga daraawiishta dowladda ay si khaatimo goob kasta iyo difaac kasta ay joogaan marka koowaad waan ku hambaliyeynayaa guulaha ay soo hoyeen waxaan leeyahay guushu waa dhankiina annagu waa idinku faanaa waxa meel walba ka qaylisiinaya ee isaaq isku tolay ee qaylo dhaan waa waray meel walba hargeysa baroortu ka socoto waa jabkada cadawga gaarsiiseen idinkana midda la idinka baahan yahay ismaqalka ilaalisaan kala dambeynta dowladnimada ilaalisaan kala dambeynta ciidanka ilaalisaan awaamiirta aad qaadataan ciidanka iyo saraakiisha u hoggaansataan hal qodobna inaad joojisaan halka qodob oo ah qaniimada inaad ku ordasaan joojiya sarkaalka iyo askariga qaniimada uu saa u yaacsanaya ee saa u ordaya waa noox wanaagsan ma waa waxyaabaha keeni kara way khaladaad waxa loo baahan yahay qaniimadan aad ku odsan waxa ka fiican mar waliba adiga sarkaalka ka amar qaata saraakiisha u hoggaansama kala dambeynta ilaaliya absolutely waxa dhici karta adigoo ciidankii jabiyay oo burburiyay intay ku baqal carabaan inaad iska daba ordid ma absolutely mar walba anuu arrimaha ciidanka waa laga fiican laakiin dee waxa weeye saraakiisha u hoggaansama oo kala dambeynta ilaaliya oo markaad ismaqashaan oo aad kala dambeysaan dee waxa weeye waa guul weyn wey waa guul weyn laakiin dad wax jabisid oo burburisid oo cagta marisid oo iska daba orodid oo ku baqal carraan maaha meeshaas khaladaad ba ka imaan kara taana ciidamada waxaan leeyahay qaniimada lagu ordayo joojiyo saraakiishan amar ka qaata intaasna waa qodob oo ciidamadan u direeya waa idinku faanaa guul baad soo hoydeen waad guulaysanaysaa insha Allah garabkiinana waxaan kusoo gabagabeynayaa heer SSC khaatumow dhaxda u xidha waxaan aaminsanahay maanta ka horow dadkeenu dagaalba kuma jirin maanta si dhiifoon oo rasmi ah dagaal u qaateen waxa loo baahan qolo walba meel bay ku aadanta qolo walba meesha ku aadanta inay qabsato weeye waxa weeye xukuumadan waxa looga fadhiyaa dadka inay jihayso oo ay hoggaanka u qabato oo ay absolutely istiraatiijiyada dagaal iyo midda ciidan
يمد الدبلوماسيات انت بالدولة دا ما مشوا ودب دليل ugu weyn waa la idin hayaa laakiin halka idin ka dhaliil mayno absolutely halkan dhaliil idin ka sheegi mayno waa in xukuumaddeedii baa tihiin dawladdeedii baa tihiin waxa weeye hadii la ku leeyahay khaladaadka dhici karana meeshaad ku sixleedeen idinka yaqaana waxaan leeyahay hal loo guntado hal loo diyaar garoobo dagaal ballaaran anu mid idin sheegaya oo xaqiiqa wareer SSC Khaatumo isku duuban dal joog iyo dibad joog والله بالله والله اتكعت كانت ما جرت اتكعت كانت ما جرتو waxa meelaha ka soo socda afka ka qabsada oo idaacada falgaadeenaya ignore gareeya dantiina uu ka shaqeeyo wala doogaya la dacroon absolutely afka ka xita inagu cadawga isaaq iyo asram iyo door aynu waqtiga badan joogtiga badan aynu galino oo intaas weey ayaalaha hoose internalka ay aflagaad waxa ignore gareeyeen yaa loo jawaab cidna intaasna waa arfays khayr baa ma yiri insha Allah ta'ala boqolka reerisi Khaatumo kaliya loogu talagalay reerisi Khaatumo loogu hadaad adigu daawatay oo reerisi Khaatumo ahayn han bay kugu tahay insha Allah ta'ala khayr baa ma yiri insha Allah salaam alaykum